Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay ka hortagga cilladaha hogaamiyaha. Ku soo dhawaada barnaamijkan. Waa taxanihii qaybtii labaad oo ugu talagalnay inaan ku soo gaarsiino. Marka waxaan insha Allah haddii Ilaahay dhex mashaaxin doonaa falaqeynaynaa mowduucan si hufan. Fadlan nagu soo biir oo markaas aan daha ka qaadno fikradaha muhiimka ah iyo talooyinka wax ku oolka ah si aan uga caawino dadka aqoon-yahanada iyo hogaamiyayaasha inay kor u qaadaan waxtarkooda hogaamineed oo ay u gaaraan natiijooyin wanaagsan oo wax ku ool ah. Waa mahadsantihiin. Fikrado qiimo leh oo wax ka bedeli kara habdhaqanka hogaamintaada ayaanu halkan kusoo bandhigaynaa. Waad mahadsantahay, nagu soo biir. Haddaba aan bilaawno barnaamijkayaga. Ka hortagga cilladaha hogaamiyaha. Su'aal: sidee hogaamiyaha uga fogaan karaa cilladaha garaadka ama dhaliilaha fashilka ku saleysan dhinaca xikmadaha taas oo ku dheehan cilladaha garaadka? Waa maxay arrintani? Balan eegno jawaabta. Hogaamiyayaashu waxay ka fogaan karaan gafka xikmadda loo geysanayo ama fashilka xikmad la'aanta ah iyagoo raacaya tilmaamaha ama habraacyada soo socda. Tan koowaad, waxaa loo baahan yahay waxbarasho joogto ah si firfircoon u raadinta aqoonta, la socoshada isbedelada ka jira qaybaha kala duwan, taa oo bixisa fikrado qiimo leh iyo furfurnaanta aragtiyo cusub. Waa muhiim. Tan labaad, raadinta warcelin kala duwan si loo helo aragtiyo kala duwan. Aad bay muhiim u tahay arrintaa, lamana inkiri karo. Dhiirigelinta jawaab celinta ila kala duwan oo ay ku jiraan xubnaha kooxaha, khubarada iyo daneeyayaasha si loo helo fikrado iyo aragtiyo kala duwan oo caafimaad leh. Tan saddexaad, xishood iyo isxakameyn. In la qiro in qofna uusan helin dhammaan jawaabaha iyo furfurnaanta barashada khaladaadka iyo guuldarrada. Waa in wax laga bartaa guuldarrada. Muhiim weeye arrintaa. Tan afraad, waa horumarinta go'aan qaadashada anshaxa oo akhlaaqiga ku saleysan. In la kala horreysiiyo tixgelinta anshaxa iyo qiyamka habsocodka go'aan qaadashada ku saabsan hubinta cadaaladda, daacadnimada iyo daahfurnaanta iyana waa lagama maarmaan. Weli waxaynu ka sii hadlaynaa ka hortagga cilladaha hogaamiyayaasha. Tan shanaad, dhisidda garaadka dareenka ama shucuureed, kobcinta iswacyigelinta dareenka iyo xirfadaha wada xidhiidhka iyo isla shaqaynta oo wax ku ool ah si loo helo dhaqan wanaagsan oo lagula socdo ama lagula dhaqmo dadka dhexdiisa, si loo sameeyo go'aano sax ah oo ku dhisan garaad fiyow oo daacad ah, lehna cadaalad, sinaan iyo daahfurnaan la iska dhex arki karo. Weli waxaynu ka hadlaynaa ka hortagidda cilladaha hogaamiyaha. Tan lixaad waxaa weeye la taliyayaal iyo talo wanaagsan. In hogaamiyaha uu raadiyaa ama raadinta hagitaan iyo la taliyayaal shakhsiyaad khibrad leh ama la taliyayaal la aamini karo, kuwaas oo bixin kara aragtiyo qiimo leh oo aan ahayn koox saaxiiba lala yahay oo isku rarana oo markaa la tusaa dadka in laga keenaa taliyayaasha qaybaha kala duwan ee bulshada. Weli waxaan ku jirnaa qodobadii ka hortagga cilladaha hogaamiyayaasha. Tan toddobaad waxa weeye ka milicsiga waayo aragnimadii hore, barashada guulihii hore iyo guuldarradii hore in wax laga bartaa waa muhiim. Saameynta baaritaano kadib si loo falanqeeyo go'aamada iyo adeegsiga casharrada
laga barto arrintaas si looga feejignaado ficilada mustaqbalka. La taliyayaashu waa inaysan ku koobnayn saaxiibada hogaamiyaha oo keliya. Haddii taa dhacdo, waa ceeb akhlaaqi ah. Waxaa la rabaa in dadka la hogaaminayo ay iska dhex arkaan oo markaa ay oran karaan meeshaas waxaa taalla cadaalad iyo hufnaan. Tala qaadasho waa muhiim. Waxaan u malaynayaa inaan arrintaa isla fahanay. Arrinta ka hortagga cilladaha hogaamiyayaasha waxaanu kusoo koobaynaa in xeeladahan qaabkooda hogaamineed ay hogaamiyayaashu wax kaga faa'iidaystaan. Waxay kor u qaadi karaan awoodda go'aan qaadashada, kobcinta dhaqanka xikmadda akhlaaqiga ah ee dadka iyo kooxaha dhexdooda, waxayna yareynayaan cilladaha xikmadaha ka iman kara. Intaa baynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan qiimaha leh. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.